بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كسو دو برنامج عصب oo la yiraahdo xog kororsi barnaamijkani waa barnaamij cusub wuxuu ka warami doonaa waxyaabo badan oo iskugu jirta baarisyo turjumaado gorfayn buugeed iyo waxyaabo badan oo la halmaala barnaamijku wuxuu yeelan doonaa qaybo badan qaybaha uu yeelan doono qaybta koowaad waxay noqon doontaa qaybta aynu ugu magac darnay soo koobida iyo gorfaynta buugaagta qaybtaasi ayaan jeclahay ifafaalo kooban ama iftiimin kooban inaan ka bixiyo barnaamijka soo koobida iyo gorfaynta buugaagtu wuxuu noqon doonaa barnaamij taxana oo kolba lagu gorfeeyo buugta la akhriyo markaasi ugu saameynta badan leeyahay bulshada horumarkeeda qaaraan bay ku darsanaysaa barnaamijkaasi buugaagtu wuxuu ka goobnaan doonaa luqado kala duwan luqadda Ingiriiska luqadda Soomaaliga iyo luqadda Carabiga saddexda luqadood ayaa ugu muhiimsanaan doona barnaamijka soo koobida iyo gorfaynta buugaagtu waxyaabaha aan jeclahay inuu gaar la noqdo waxa weeye koow horta inuu ahaado barnaamij duuban oo la helo wixii duuban oo la gorfeynayo oo qofkii uu soo jeedinayo sidoo kale in lagu helo isagoo qoraal ah oo barnaamijkii la daawaday isagoo qoraal oo PDF la heli karo marka labadaba qof kolba kii doono inuu heli karo lambar 2 inuu noqdo barnaamijkaasi barnaamij buugta oo akhriyo cadaalad u sameynaya oo dhaliishooda iyo waxyaabaha ay ku wanaagsan yihiin labadaba sheegaya halka ay ku xun yihiin dhaliisha ku leeyihiin oranaya hal la toosiyo halka ay mataqaana ay ku fiican yihiin ku hambalyeynaya lambar 3 barnaamijkaasi wuxuu noqon doonaa barnaamij faahfaahin fiican ka bixiya nuxurka kolba buuga la akhriyo inoo qalan aynu doonayno inaan gorfeyno aynu si wanaagsan oo qurux badan soo koobideedii qof aan akhriyin wax badan ka fahmi karo isagoo markaa buuga arkin qodobka afraad aynu barnaamijkaasi noqon doono mid kuwa kale kaga duwan wuxuu noqon doonaa barnaamij waxyaabo kala duwan lagu falanqeyn doono hal mowduuc kaliya ma soo qaadan doono laakiin wuxuu noqon doonaa barnaamij mowduucyo kala duwan oo markaasi buugta ay falanqeynayaan lagu eego oo kolba dhinac laga istaagayo afarta calaamadood ayuu barnaamijku yeelan doonaa barnaamijku waxyaabaha aan doonayno inuu kordhiyo ama uu soo kordhiyo oo uu bulshada ku darsado waxa weeye lambar 1 barnaamijkaasi inuu ahaado barnaamij xog badan kordhinaya oo qof mataqaanay wax u baahan inuu xogtaasi fudud ku heli karo lambar 2 qofku xogta raadinaya inuu waqti kooban ku heli karo xog badan oo buugaag fara badan ku jirtay oo meel waaga una garaneyn in qofkaas ku heli karo si fudud oo waqti kooban ku heli karo lambar 3 waxa weeye qofku meel uu joogo buugaag uu ka waayay oo aan la keenin ama cid uu soo qaada uu waayay ama si kale uu xiiseynay inuu markuu barnaamijka daawado ama uu gorfaynta laga qoray oo akhristo qofkaasi buugtaasi wax badan uu ka fahmi karo lambar 2 lambarka u dambeeyo wuxuu yahay qofku inuu buugta markuu daawado ama uu akhristo uu xulan karo oo buuga isaga uu jecel yahay oo isleeyahay waxbuu ka bedelayaa ama waxaana doonayso ay wax u taraya in qofku xulan karo oo barnaamijkaasi markaa garan karo afarta qodob ayaa ugu muhiimsan ujeedooyinka aynu sameynay insha Allah ta'ala wanu bilaabi doona taxan wuxuu inoo noqon doonaa mid markiiba hal ma soo gal oo buug lagu falanqeynayo la socosho wanaagsan mahadsanidin